بسم الله. kusoo dhawaada dirito podcast waa anigu ah maxamed hawle oo daadin doona maanta barnaamijkeena maalinlaha ee ka baxa dirito podcast. maanta inta waxaan la joogaa Doni B, the owner of dirito. maanta inta asaga hostia Doni soo dhaw. waa dhawaad my brother maxamed hawle odi magacyo badan ku kasaanay marka waa ku dhawaad brother waana jeclahay marka ay hor fadhidid ay wareysanaysay waa ku dhawaad brother. ما شاء الله waxyaalaha ku jeceshahay markaan ku fadhiyo dadka ugu duwan maxay sababta seetay waad ka saa madaxayga gashaa ogtaa adiga xitaa okay waxa way barnaamijkeena hore u sii galeynaa maanta waxyaalo badan baan ka wada hadli doonaa meelo badan baan taaban doonaa aad weyn horta markii koobaad dad kula kaftamo dad badan waxa arka comment kugu soo qoriyeen horta Doni macnaha badana okiyaalo xirtaa ayaan horna waxa jirta sheeko aad u qarxaday oo dadka fanaaniinta okiyaalaha xirto calaamad waxa jirta pyramid ama ay yiraahdaan Illuminati. Soomaalida Illuminati horta maxaa sagalay Illuminati maxay waxaas waa fairy tale waa been waa ciyaar waa sheeko xariir maqli jirta sheeko xariir waaye sheeko macquulna hal qof la ka dhigay amar barbara la ninkaas wuxuu ku cuni karnaa ku cuna ma fahamtay marka sheeko xariir uu macaan ka dhigay aan Soomaalidana ka dhacday and they took it laakiin wax ka jira malay Illuminati waxaas bullshit ana wax weeyaan dhowr mar waxa dhacday ayaantii baalku aad ku socday ana waxa laga dhigay wax serious ah waliba dadka badana maartay dadka social media ku jira ay ka isfahansan iska warqabo aada weyn waxaan lagu dhaliilayana wax weeyaan ayka wax ko ana dadka laakiin dadka viewerska badan waxaan wax run ah u maleeyaa oo daacada hadda adiga hal sano amal waxa weeyaan dirito waa ka maqnay waxa la dadka qaar in isleeyihiin ninka odayga waxa weeyaan pyramidki wixii baa u jabayo initiative soo sameeyay wuxuu soo sameeyay amala xaaladu ayagu booqda amal ma waxa saxaabo kama jiraan inuu hal sano horta waa ka maqneen podcast dirito waa ka maqneen sababtiin adduunka dhan hal sano wixii dhacay waa ognahay hal sano dhan hal dadaal duqeynay la baabiinay okay صح oo non stop caruur ilmo hooyooyin maamooyin soo marka halkii sano la soo dhaafay wixii dhacay ognahay soo adduunka dhan 10 sano ugu dambeysay ka duwana halkii sano la soo dhaafay inta dhimata xalena ilaa oo naxariisto of course anaga dhulkeena dad badan ka dhimanay soo adduunka dhan uu qariban yahay sida dadka dhan wada ogsoon yihiin صح marka hal sano kadibna waxaan ku faraxsanahay inaan soo laabanay wax badan ay isbedelay inaan ku soo laabanay podcast-kiina halka sano la isduqeynay waxa la yaab leh macnaha dirito waxa ugu maqnayd miyaa xagga aaday mise wax u jira wishna aadi karo maanta free Palestine iska soo jari karo balaakiin aawe amin keena intaas ka jooga aniga qalbiga kala socda sheekadan oo Palestine maahan wax oo Islam or Christianity waxaas dhan ma is about wax oo humanity binaadamka qoseewa one people all la baabiinayo the other people are stronger adduunka dhan baa gareenaya waa mafahantay marka malahan wax maahan diiniyo ah it's all about humanity why if you see a kid or dhimanayo waa ka xumaanaysa so marka cunigaro haysanin biyo daawo haysanin lugaha laga jaro without anesthesia daawooyinkii lagu durayo lugaha oo laga jaro so dhibaatooyin badan ay mareen marka jeclaan lahayn aad niyad waa ka jeclaa laakiin waxa uu ma qaban karo sababtoo Soomaaliya iga dhow oo ka soo horeyso oo siyaasadda ma fahamtay 35 sano madax isku la jirto so wadareem ka Soomaalida xawaattooda ka duwan tahay oo Soomaalida ayaga munaafiqnimo dhexdooda ka jirta awgeed isku baabiinayaan isku leynayaan tan waxa wada kaleeto nin kaleeto korkii meel kale ka yimaado macnaha waa nin kaleeto oo duulaan ku ah Soomaalida laakiin dhexdooda waa macnaha wax isdhig kara waa wuxuu taagayaa 3500 sano ka hor guriga ana lahaan jiray waana hadda ku dhaa kursiga aan ku fadhidaana iskala 3500 sano ka hor ana lahaan jiray so marka is kind of weird thing wax wareera socdo qofka aqli lana adduunka uu fahmayo it's not about religion it's about politics waa sax أنا قبيلة waxaan isleenayo dhan waa about politics dada siyaasadda wadada wax ku cunayo aan dadka isku diray dadka Soomaaliyeedna ilmahooda way isguursadaan business ku kulmaan ganacsiga ka dhaxayo okay laakiin markay dadka soo istaaga waxay dhahayaan no cidaasay waxan tahay sax ma okay so muhiimaddu waxay ku jirtaa ayaga jiritaankooda waa anaga kala qaybsanaanteena ayaga waligood u jirayaan haddii aan anaga kala qaybsanano isku imaano ayaga ma jirayaan صح so ayaga sida ay u jiraan waa in anaga kala qaybiyaan
exactly sida ninka cadaanka sameyn jiro oo marka hadda macnaha qabiiladani waxaan Soomaaliya ka wada socdo yeah it's bullshit waxaas oo macnaha Ben. waa tig mal laha bahalka xoolaha intuu maartay dhiiga ka dhuuqa camal ha oo tig dawaarta markuu xoolaha dhuuqa magac kalena waa la dhahaa Yeah. takar ma la dhahaa waxa la gafana meel yiraahdo gafan is something like that qofba magac u yaqaanaya laakiin waxa la yaab leh macnaha dadkan ay ka macnaha laga dhex shaqeysanayo of course oo isku diriyo qabiilada hebel la dheeraa hebel macnaha ayagu macnaha dad noocee ah waay macnaha marnaba ma isma ku fikiriyaan miyaa qofkan isku kindaraya ama ninkan calul weynaha bari ku imaanayo ku dhahaya oo nabadan ka shaqeynana macnaha ayaga marnaba ma ku baraarugayaan miyaa sababta uu baraarugayeen horta waxay tahay all evil oo dhan lacaga keento sharadna lacag sharo dhan lacaga keento lacagta dhankeedana waxay aaday dhalinyarada ma aadan waxay aaday odayaashii aaday and odayaashana they know how to use it ilmaha waxay u dilayaan dagaal weli ma aragtay dagaal dhacay laba dad isdagaal laba reer oo odayaashii dhan la baabiyey weligaa ma aragtay sababta dagaalka front line ay ku jireen ma dhacdo markii la fiiriyo meydkaan 60 jir waa kan 70 jir waa kan 80 jir weli ma aragtay ma dhacdo laakiin 20 jir meedadkooda buuxo aragtay 18 jir 17 jir of course kuwaas la soo diraa cause ninkaas inuu dhinto waa cunug yariiska si uu ninkan 60 jirka u noolaado sax yeah mararka qaar waxa dhacdo sheekooyin aan arkay waliba qaar xitaa anigu aan experience gareeyay baa jirto dad waxaa jiro macnaha meel colaada joogaan meesha colaada dadka jooga nin baa marka wuxuu yahay nin oday adu soo qorigiisu wataa de xaafadiisu jooga si fiican waxaa dhacaysa wiilashuu dhalay wuxuu leeyahay hebelow adiga waxa weeyaan xaafada macnaha waxraha si raac adiga ubadka oo siday adiga xagga mar yeah marka waxa jirta col meel fadhiyo oo marka loo baahan yahay in loo diro maxaa la yiraahdaa ciidan sax waraa in hebelow adinkana waxa weeyaan jidda hore taga waarka anu col alu leeyahay cola meel fadhiyaa tira cola meel fadhiyo colka ma dad shisheeya mise dad Soomaali leh waa isla Soomaali dhexdooda taasoo fani ma qofaas laakiin sidee ku dhacday macnaha hadii ninka leaderka odayga macnaha inuu asna wiilashiisina gadaal u geeyo kuwan kale tan uu yiraahdaa hay gala dabka geliya sababtoo ah wuxuu arkay haddii uu saxsan yahay iyo hadduu qaldan yahay nin kastoo Soomaaliyeed oo madaxa ciduu doonaha wuxuu arkay hadduu qaldan yahay iyo hadduu saxsan yahay in loo sacabto maayo weligiis isma garanayo inuu qaldan yahay inuu saxsan yahay isku maleeya because of hadduu arko some fools u sacabto maayo maalin walba tadhahayaan waa ku wadanaa when will he realize ma fahmaan he will never realize he will never realize weligiis ma fahmanayo inuu khaldan yahay dadkan uu baabiinaya lacagtoodan uu qaadanaya dhulkooda uu qaadanaya aan cidiisana waxay dhahaysaa wow laandheerheena oo wadanaa yeah that's what it is dhibkan haystintaas waa ma dhihi karna dabaalkeena dabaal waa su'aasha xigta aan ku weydiinayo dooni wax waaye halkaas markaan kaga soo tagno xaggaas iyo qabyaaladii wax Soomaaliya ka jiray iyo dadkii muslimiinta ah intaas dhan la duqeynayay horta mar xagga dadka la duqeynayo Falastiin hadaan dib ugu laabto hadda macnaha madaxweyne cusub oo Mareykanka imaaday yeah Donald Trump kii hore joogi jiray Donald J Trump joogi jiray dad badan oo horiyay hadda Soomaaliya iyo waxa arkay maalin hore iyo Falastiin oo awal dad walaalo ah dhig isku shweeyay oo macnaha social media aad soo dagaalaya hadal uu yiri Trump tirtiis صح maxay kula tahay marka Falastiin iyo macnaha inay Soomaalida hadirtaan colaad ka dhex abuuranto ama hadalka macnaha Trump uu yiri Falastiin ka dhan baa xaqiyay waxaan geenayaa Soomaaliya kale maxay ka dhigan tahay dadka Mareykanka hadii soo kacayaan especially white America way soo kacayaan laakiin adduunka kale twajifaan politics kas Mareykanka Democrat Republican ma ku xirno when qof markuu soo koro he will change the other policies before him is the same policy why Israel first why okay but in their mouth waxay dhaayaan afkooda waxay ka dhaayaan America first by Israel first why and I think Trump now wuxuu sameynayaa mar walba Israel first صح as madaxweynayaashii hore ee sameeyeen oo kale so and if he tries to fall kii kaleeto dhan inuu u baxo hadduu isku dayo wadadaas ka leexdana waa ogtahay JF Kennedy waxa ku dhacay madaxweynihii hore 60 sano ka hor yaa asaas lagu sameynaa Trump naftirkiis yaa soo bilyana so qof diidi karaa markooda ma jirto in ayaga la dhageysto waa sababtoo ayaga control Mareykan waana weydiin kartaa sababtoo controlaan okay waa maxay sababtoo control sababtoo ayaga adduunka inay u taliyaan rabaan they want to rule the world
that's the fact. waxaa jira Pax Britannica, صح Pax Americana, the last one is Pax Judaica, and they have to rule the world from Jerusalem. اوكي It's a fact. But anaka markii when we used to study school ka markaan baran jirnay, we were never told waxaaseed and saasay u socoto. صح qur-aankana wuxuu dhahay intalikuu ilaa dii dhillin dii thalaati shucab. You may proceed hadda wixii ka dambeeya 3 hoos. 3 hoos maxaa waa? hooska dajaal waa. Okay, dajaal as a shadow. xukunkiisa Britain u talisa adduunka way soo dhamaatay. Pax Britannica, Pax Americana ku xigto. صح The last one waa Pax Judaica. And qof ka hor imaan kara mala, they have to rule the world. So إلهي أم بكوي ilaaha ka weyn way og yihiin, you know, laakiin still way ku socdaan. qof ka hor imaan karna ma laha. Yeah. maxaa loo waayay qof ka hor imaado asna power la sheegtay sida hadda Mareykanka macnaha ayaga kaligood maaha nuclear power wadamo kala badan jira waa loo waayay ama Asia ha ahaato ama Africa ha ahaato macnaha dad ka soo baxa ama dawlad ama xukun ka soo baxo oo macnaha la tartami karo ma dad diida way jiraan. I think video qaarna soo qaadana fiican inta xataa aan ka soo deeno. صح dad white oo dhahayo Jewish will not replace us market. Some white people or Nazis who touch watan. صح way necab yihiin, way ka soo horjeedaan. Jews will not replace us! Jews will not replace us! Jews will not replace us! صح laakiin saas taa maxay samayn karaan? dowladooda dhan ay controlaan. The whole government ay control everything, ay control. صح So marka Mareykan naftirkiisa hadii la control, what about wadamadan yar-yariska anaka ku nool? What about these small countries, Africa? The peanuts waxa ma. So marka ay control wax walbana control since 1945 ilaa hadda. صح Especially since 1991 ilaa hadda. Arguably markii la fiiriyo 1945 waa la dhihi karaa, laakiin ilaa 1991 ay control zaid. صح dowladda carabna madaxina kor u soo qaada ma jeclo. So yeah, صح anagana maalin walba xadana carabana. As Somalis we have to realize in African. صح So instead of Arabna ku hayno, our DNA Arab ma gala. In fact Arabana ka dhalna. ayaan dara waay unig adiga dhashina dhahdeed aabahay waa wasku dhaxyaado markaas mataqaanid waxa ku hadlaysid wax kale sidee bay عربك معناها صومال واحد أفريقيا لا لماذا صومالي of course ninka carab waxay gashaa Hashim Kanana kadib Hashim galan Hashim Ismailna Abraham adal. So Abraham naagtu guursaday oo Ismail u dhashay Hajar waa Hagar Soomaaliyeed, a black woman. لكن black woman هات لكن صومالي بهد مياه Soomaaliyeed. هاي صومالية كهد مر I don't know, but a whole of East Africa ka soo jeeda la sheegaya inuu taariikhyahanka marka fiiriso odayaal East Africa معناها أو صومالي كسو جدا. Yeah, maybe Kenya, part of Kenya kamid tahay. هاي Some 7,000 years ago 6,000 10,000 Abraham. So marka Arab marka la dhaho Arab he cannot outdate a black man. He's the child of a black man marka asagana ma dhalin. صح He is our child. Asaga yellow man, everyone Chinese ana ka dhalin. But the history waa la bedelay, waa la tirtiray. So black man waxa laga dhigay asaga inuu ugu hooseeyo qof mana dhal cirka ka yimaada ama dhagax uu ka soo dhaxbaxay. But he's actually the father of human race. He's the black man, right? Exactly. صح